السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الملك استاد جوجتان iskastad noo daawanaysaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada toddobaadkii mar aad ka daawan doontaan TV-ga Star TV xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa daawadayaal barnaamijkeen waxbarashada iskuulka waa bari primary and secondary school oo ku yaala degmada waa bari waxaan wareysi kala yeeshay maamulka xigeenka iskuulka Ustaad Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed oo warbixin iga siiyay taariikhda iskuulka uu soo maray wax qabadka bulshada uu qabto استاذي كسو دوا TV ستار TV حرنتيسا دحي magaalada Muqdisho السلام عليكم ورحمة الله marka hore waan ku dhawahay telefishinka Star TV adan igu mahadcelinaa sida noo soo boqotay maanta dugsiga iskoolka waa bari goorta iskuulka waa bari primary and secondary school ee la asaasay bismillaahir rahmaanir rahiim iskool waa bari waxa la asaasay sanadkii 1993 oo xilligii ay dawladda Saad Bare ee dhacday ka bacdi ayaa la asaasay dabcan waxaan ugu dhaliyay inaan asaasno iskoolka waa bari waxbarashada dalka waxbarashadaanta ka dhacday sanadkiis markii oo dawladda dhexe ee dhacday ayaa waxaan ugu dhalisay in dalkeena iyo dadkeena aan waxbarno si ay dadkeena wax u qabsadaan dadka dalkan wax u qabtaan ayaa ugu dhalisay inaan asaasno iskoolka waa bari dabcan waxa ka qalin jibisay ilaa iyo 20 dufcadood ayaa ka qalin jibisay dabcan way jiraan qaab aan kala xulno macallimiinta markii aan u baahno macallin waan wargelinaa waxay noo keensadaan dabcan CV-yadooda macallinka markii CV-giisa aan ku qanacno ka bacdi waxaan sameynaa hadana imtixaan ayaan ka qaadnaa imtixaanka macallinka ku guuleysto ayaa u qaadanaa macallinimada maadaama mas'uuliyadda ay naga saaran tahay ardayda wax la barayo si ay macallin wanaagsan oo wax ku fiican waxbarida aan saas u sameynaa iskoolkan waxa ka qalin jibisay 20 dufcadood ma siisan ardayda markay dhameeyaan oo kala iskuulka fursado kale waxbarashada kaalmaha dabcan waa siinaa jaamacadaha wadanka ku yaalo xiriir wada dhexeeyo ardayda kaalmaha hore gasho waxaan siinaa minxooyin oo aan ka helno jaamacadaha dalka aan ku siinaa kuwa qaarkoodna nasiib u yeesho waa jiraan dibadaha uu aado dabcan dalada aan xiriirka leenahay oo Fembes waxaan ugu siisaa marka qaarkood ardayda fursada u helo waxbarashada dibadda ardayga kaalinta koowaad galo oo kale ama labaad waxaan noogu u dirnaa dibadda fursada u helno waan u dirnaa dabcan waxaan kala duwanahay waxyaabo badan waayo iskoolaadka xamar ku yaalo iyo iskoolkeena farqooyin ayaa u dhaxeeyo dabcan anaga iskoolkeena waxa u badan dadka aan waxaysanin ayaan wax ku barnaa dabcan baahida waxbarashada anagoo fiirinayno ayaan u sameynay arday qaarkood waxaan ku dhignaa lacag laan dadka qaarkood aan u fiirinaa heerarka ay dadka kala yihiin saas ayaan u kala duwanahay iskoolaadka xamar ma jiraan caqabadaad kala kulantay markii iskoolka la asaasay dabcan markii iskoolka la asaasay ilaa hadda wax caqabad oo aan kala kulnay ma jirto ilaahay xamdigiis waaye ma jiraan waxa jira arday aan awoodin qarashaadka iskoolka lagu dhigto aan bixin karin iyo arday ka bixin karto qaab nooc ayaad u macaamishaa dabcan waxaan fiirnaa heerka waalidkii iyo familigaas oo yahay arday hadu family waalidkii yahay qof lacagta bixi karo waa soo dhaweynaa waan ka qaadnaa haduu waalidka oo san awoodin in lacag qarashkaadka ardaygiisa oo ka bixiyo sidoo kale isagana waa soo dhaweynaa hadda waxaan helaynaa arday koowaadka aan soo bilawnay ilaa foorka oo ka qalin jibiyo oo lacag laan ku soo barnay xitaa waxa ugu sii darnaa jaamacadaha marka qaarkood inaan manxa u siino aan fiirino waayo maadaama ardayga anaga gacan ku soo heynay koowaadkiisa ilaa foorka aan wax soo barnay mar kale daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka waxbarashada TV-ga Star TV xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho dhanka kale waxaa mikrofoonka la dhax qaada qaar ka mid ah ardayda wax ka bartay iskuulka waa bari primary and secondary school oo ku cabira dareenkooda qaabkay wax uga bartaan ardayda iskuulkaasi Assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakatuh bacda taxiya magaca Ibrahim Qaasim Abdi iskuulkan waxaan ku soo biiray sanadii 2014 dabiiqadeeda bishii 9aad waxaan ka bilaabay galaaska form 1 asalkay waxaan dhiganay iskuul lagu magacaabo 20 December oo dawladda iska leedahay 8 sano ayaan soo dhiganay
hadda waxaan ahay galaaska form 4 koonfur ayaa tahay marka iskuulka kusoo biiraysa iyo hadda maxaa farqiga u dhexeeya wallaahi farqi aad weyn ayaa u dhexeeya maasha Allah iskuulka 2014 ma ka imaanaya form 1 ayaan ahaa waxaana kasoo baxay fasalka sideedada imtixaanka dawladda ayaan soo galay oo sideedaadka ah oo shahaadadeeda aan ku qaatay maasha Allah aqoonteeda markaasi waxaan ku liitay maadooyinka oo scientifiga laakiinse iskuulaad oo badan ayaan raadsaday oo maadooyin scientifiga iska yeesho alxamdulillah ilaahay inuu ii soo geliyay waan iska dhigay maasha Allah wallaahi hadda 10 maad ayaan qaataa wallaahi 4 maad scientifiga oo kala ah biology physics chemistry iyo math iyo maadooyin tarbiyada iyo carabiga Soomaaliga geography aan qaadana iyo historyga wallaahi maasha Allah waxaan u baaqilaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan waxbarashada haysanin in la garab qabto oo anigu u horeeyo oo habeenkii waxa ay furan maasha Allah iskuul private ah oo ardayda oo da'da yar ilmaha yarka xaafadda joogan wax baysan waalidiintooda aan garab siiyo guriga ayaa qol iga yaalo oo ardayda oo awala magacayga waa Nimco Bashir Nuur Nimco Nadar waxaan dhigtaa iskuulkan waa Primary and Secondary School oo iskuul facweyna waxaan ku soo biiray 2011 waxaan dhigtaa hadda galaaska form 4 waxaan ka bilaabay galaaska primary ka soo bilaabay marka iskuul tacliintiisa aad ay u sareyso waxaan qaataa 12 maado dugsiga sare farqi weyn oo dhaxeeyo waayo markaas waxaan ahaa arday oo la gacan qabanayo haddana arday heerka ugu sareeyo looga baahnaa ahay waxaan rabaa inaan ka sii gudbo secondary oo heer jaamacad aan sii aado waxay ugu dhiirigeliyay waalidkayga sida hooyada iyo aabahay oo kale ayaa ugu dhiirigeliyay inaan wax barto oo aan noqdo qof aqoon-yahana oo heerka maanta aan taagana aan soo gaaro waxaan rajeynayaa inaan noqdo doctoreso من وافري حق من وافريga ها gabdhahaas waxaan leeyahay fursadii way ay gabtay waayo Soomaali waxay tiraahdaa gabdhaha wax ma la baraayo wiilasha wax la baraaya inkastoo anaga ahami hadda ku yeelanay oo kale in la baro wax tacliintan hadda aan baranay oo dad aqoon-yahan aan nahay awlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaat magacaygu waa Xaliim Maxamed Nuur waxaan kamid ahay ardayda wax ka barata iskuulka waa bari Primary and Secondary School horta iskuulka waxa ku soo biiray horaantii 2014 kadib marka grade 8 ka soo baxay saa dugsi sare oo dhameystaa halkan oo maade haddana waxaan dhiganaa 3 sano aan dugsiga sare fadhiyo waa form 1 form 2 form 3 oo hadda sanadkan 4 ah oo form 4 ahay marka fast waxa dhigan jiray iskuul dawladeed dhigan jirna oo lacag la'aan ah wax ka baran jirnay dan marka ya maya iskuul hay'ad leedahay iskuul 20 December hadda taqaan iskuulkaas aan dhigan jirnay dan marka ka soo baxnay iskuul grade 8 oo ku eega anagana waxa asi go'aansan inaan wax barashadeen hore u sii wato dan saasa ugu soo biiray iskuul waa bari hadda galaaska ugu dambeeyay ee form 4 ah إن شاء الله هدو إلهي كرال نخذ واجعله امتحان كاس أو أرض الصومالية يكون مدرسين إن عنك خيب قاله هدو إلهي يرهدو وعبرشة وحيقول لي رجلي هو إذا أبيه أجري حسنات أنا سوق بكرة بها كسي وهري مقعد كبلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هدي أن كبلا مقعد وفيصل نور عبدي فيصل روسان إن iskuulkan waa beri waxaan ku soo biiray sanadu markii ahayd 2014 markii aan kaga soo gudbay dugsiga dhex markii ka soo gudbay isla durbadiiba waa ku soo biiray iskuulka waa beri iskuulka waa beri waxaan kaga soo biiray anoo soo dhigtay iskuul kale oo dugsiga dhex markii ka soo baxay iskuulka waa beri waxaan ku bilaabay heerka dugsiga sare galaaskiisa koowaad ee fawanka ayaa ku bilaabay iskuulka waa beri horta aqoonta sideeduba marka ka sii dambayso way kortaa markaas aniga hadda hamiga hadda leeyahay waa yeelanay ma aaminsanin waxa hamiga hadda igu dhaliyeen waxa way aqoonteeda oo siyaaday macallimiinteeda iskuulka waa beri joogto oo si wanaagsan ii barbaariyeen oo aqoonta
dhan kasta iga dhiseen haddii aan lahayd dhanka aqoonta cilmiga ah iyo haddii aan lahayd maadooyinka oo theory-ga ah oo fikirka ah haddii aan lahayd intaba iga dhiseen marka hadda waxaa dareemayaa waxbarashadeeda inay koobacday oo aan la jaan qaadi karo arday weliba adduunka meel kasta uu ka joogo oo macnaha sida aynigayga oo kale ah oo hadda galaaska afraad ee ugu dambeeya dugsiga sare ee form 4-ka marka hadda waxaa aaminsanahay heerka aqoonteeda ay gaarsiisan tahay in aan la jaan qaadi karo marka laga taga ardayda waddanka oo form 4-da ah xitaa wadamada kale adduunka ardayda joogaan in aan la jaan qaadi karo heerkaas ay tahay inta aqoonteeda waxaa jira arday asaagaad oo kale aan helin fursado waxbarasho maxaad dhihi lahayd wallaahi alxamdulilah horta qof walibana waxa waaye adduunyadan markii uu joogo wax waliba qadarta ilaahay ku socdaan dadka aan helin waxbarashada oo aynigayga ah aniga oo kale ah aad iyo aad ugu xumahay waxaa jeclaan lahaa sida fursad ah u helay dad badan oo walaalahay ah oo Soomaali ah oo muslimiin ah inay helaan haddii fursadaha ardayda ay helayaan ay bataan waxa soo ziyaadayo horumarka waddanka muslimiinta wax dhan inay horumar gaaraan marka aad iyo aad ayaa ugu xumahay fursadan ani helay marna ku faraxsanahay marka kalena waxa ka xumaa fursadan ani helay dadka kale oo Soomaalida ah aan helin taas oo ka xumaa mustaqbalka inaad noqoto mustaqbalka waxyaabo badan oo hiigsanaya ayaa jiro hadafyada mustaqbalkana marka la qiimeynayo kuwa dhow iyo kuwa fog mustaqbalka waxa ugu soo dhow hiigsanaya waxay tahay hadda markii ka baxo dugsiga sare waxaan rabo in laba waxyaabood aad diiradda saaro labadaas wax oo kala ah inaan ku noqdo qof aad iyo aad ugu fiican cilmiga diinta qaasatan cilmiga loo yaqaano macnaha qiblada iyo waqtiga salaada waa cilmi aad u weyn cilmu almawaqid wal qibla ayaa la yiraahdaa cilmigaas kow iyo waxaan rabaa cilmigan oo dhulka ah cilmi oo loo yaqaano geology ama afka carabiga lagu yiraahdo cilmu dabaqaati al-ard inaan barto oo ku takhasuso Soomaalina aan wax ugu qabto muslimiinta meel waliba ay joogaan labada guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii waxbarashada aad ka daawanaysan TV-ga Star TV xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho barnaamijku waxa idin soo saartay halkan idin kala socodsiinaysa anigoo ah Xasan Maxamed waxa dhanka kaamirada iga qaabinaya walaalkay Mahadiire tan iyo toddobaadka soo socda waxa lagu waloosaa magaceebahayo adaniyo afwadaji I